kulanti wanaagsan oo habboon bulshada Soomaaliyeed ee nagu xidhan waa barnaamij kooban oo aanu kaga hadlayno xaaladda guud ee waddanka Djibouti oo cirka isku sii shareertay aqalka guud ee looga taliyo waddanka Djibouti marka dusha laga eego midabka dheehiisu ku soo jiidanayo oo mid aad u dhalaalayo shacniga iyo milgahana aad yaabayso balse gudihiisa ay ka socoto xadgudub handadaad aga jugleed iyo wixii la mid ah madaxweynaha Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo qoyskiisu waa qoys ku dhisan dictatornimo ay saldhig u tahay cadaadis caburin iyo carjuugdhe iyadoo dastuurkooda iyo sharcigooda u yahay waxa iyagu rabaan oo keliya in loo hoggaansamo oo waliba lagu shaqeeyo hadal kasta oo ay yidhaahdaanna la yidhaahdo haye mudane waan qabanaya iyo waliba indhaha oo hoos looga rogo qofka intaasoo dhan baalmara oo waliba aanu hoggaansaminna xaggooda waxa uu ka yahay dambiile qaran ciqaabtiisuna waxay noqotaa had iyo jeer dil toogasho ama xabsi daayim Ismaaciil Cumar Geelle iyo qoyskiisu waa ay soo dhaafeen xilalkii dawladda ee ay isku taxeen ee waliba sida shaararka ay isugu bedbedelayeen iyagoo imika sameeyey arrin aad u murugo badan kadib markii gabadh 24 jir ay ku xadgudbeen nolosheeda iyo mustaqbalkeedana ay ku ciyaareen oo waliba cirka u calaamadiyeen haddaba aan xeelada salkeeda gaadho si aad u fahantaan nuxurka barnaamijkayga maanta waxa uu daaran yahay Safiya Maxamed Aadan waa gabar ka soo jeeda Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa waa caasimade da'deedu waa 24 jir sanadku markuu ahaa 2002 ayay ka timi Hargeysa iyadoo timi waddanka Djibouti iyadoo waqtigaas aad u yarayd oo ilmo yaro sabiya ahayd waxaanay ka bilowday waddanka Djibouti waxbarasho iyadoo waxbarashadeedii meel wanaagsan ka gaadhay oo madaxa ka jartay Safiya Maxamed Aadan 2010 waxay gashay dugsi dhanka cuntada oo waddanka Djibouti iyadoo noqotay gabar dhanka cuntada ku experience oo waliba khabiir ku oo waliba tartabna fara badan oo ay ka qayb gashay ku guuleysatay oo waliba kaalinta koobaad ka gashayba 2015 waxay ka mid noqotay Safiya Maxamed Aadan shaqaalaha cuntada ee dhanka madaxtooyada looga taliyo waddanka Djibouti Safiya Maxamed Aadan waxay noqotay gabar ka dhex muuqata shaqaalaha madaxtooyada iyadoo dhowr jeer abaalmarin badan oo shaqadeeda ku guuleysatay oo waliba hanatayba Safiya Maxamed Aadan dadaal badan iyo juhdi badan iyo karti badan oo ay samaysay 2018 waxa ay noqotay madaxa guud ee cuntada qoyska Ismaaciil Cumar Geelle iyadoo waliba madaxa guud ee cuntada shaqaalaha madaxtooyada Ismaaciil Cumar Geelle u noqotay oo waliba dhanka maamulka iyo waliba kala dirista iyo habeenta u qaabilsanay Safiya Maxamed Aadan waxa eedo gabadha uu qabo Ismaaciil Cumar Geelle ee caruurta faraha badan u dhashay oo iyada laftigeedu sida la sheegayo ka soo jeeda Soomaaliland gaar ahaan Hargeysa Safiya Maxamed Aadan waxay dadaal badan samaysaba oo madaxtooyada ka shaqaysaba waxay xiriir dhexmaray wiilka uu dhalay Ismaaciil Cumar Geelle oo waliba isaga laftigiisu xubin ka dawladda uu garwadeenka ka yahay Ismaaciil Cumar Geelle xiriir ka dhexmaray wiilka uu dhalay Ismaaciil Cumar Geelle iyo Safiya Maxamed Aadan oo madaxa guud ee shaqaalaha cuntada ee madaxtooyada waddanka Djibouti xiriirkaas waxba kama ogeyn qoyska inta kale balse kaligood ayaa hoos ahaan u gardaadinayay xiriirka jacaylkooda
safiya maxamed aadan waxaa jacaylkeedu gaadhay heer ay u hibayso xubnaha jidhkeedoo idin noloshana ay la wadaagto oo qaydhinka lagu qadhiidho nolosheedoo idin intaan aroosba la gaadhinba balse noloshii ay la wadaagtay iyo jacaylkii hoos ahaan loo wada gardaadinayay ma noqon mid qarsooma waxaana safiya maxamed aadan ku soo baxay uur aan ku jirin qorshaha wiilkan ka soo jeeda qoyska keligood taliya ah ee weliba caanka ku ah digtaateerinimada safiya maxamed aadan markii ay ogaatay in caloosheeda lagu dhex maydhanayo waxa ay u sheegtay ninka caloosha u afuufay ee ka dhisay taallada weyn ina rag inta hamadda iyo dacartu ku kacsan tahay waan ku jecelahay waa ku caan laakiinse marka jacaylku midho dhalo addimada dhulka kuma sii hayaan dhabarka ayay soo jeediyaan wiilkii waxa uu ku yidhi safiya maxamed aadan keligaa walwaalo wadaanta kuu buuxdaa aniga hay soo sheegan safiya maxamed aadan talo ayaa ku caddaatay xaalkeedu bariga dhexe ayuu noqday balse ismay dhiiban markiibana boorsadeeda may xambaaran oo gurigii kamay tegine waxay u sheegtay faamliga qoyska uu ka soo jeedo ismaaciil cumar geelle si dhibka loo xalliyo safiya maxamed aadanna dhibkeeda loola qaybsado safiya maxamed aadan in dhibkeeda lala qaybsado daaye waxa ay markiiba weyday madaxii guud ee cuntada madaxtooyada oo dadaal dheer ay ku soo bixisay waqti badanna ay soo gelisay intaasoo keliya lagagama hadhine nafteeda ayaa halis gashay waxaana la isku dayey in ilmaha laga soo xaaqo balse safiya maxamed aadan waa gabar ilaahay siiye caqli aqoon iyo karti waanay diiday in ilmahan laga soo xaaqo gaashaanka ayaanay u daruurtay waxaanay safiya maxamed aadan gebagabadii laga dhigay xabsi guri iyadoo lagu xidhay qol ka mid ah madaxtooyada qolaalka ku yaalla waa qoyskan caanka ku ah digtaateerinimada iyo weliba cagajuglaynta iyo weliba amarkooda mooyaane amar kaleba inaanu soconba waxaa xusud midan inanta sidaa loo gelayaa waxaa eedda u ah oo weliba faamligeeda ay ka soo jeeda gabadha carruurta shacniga iyo milgaha aad yaabayso u dhashay ismaaciil cumar geelle ee iminkana adduunyada ugu jecel yahay oo weliba ah marwada koowaad ee waddanka jabuuti waxaa kaloo xusud midan xaaladda guud ee waddanka jabuuti isla toddobaadkan cirka ayay isku shareertay toddobaadkii hore ayay ahayd markii sarkaal ka tirsan ciidamada ugu sarreeya ee waddanka jabuuti intuu ka baxsaday uu yidhi waxaan samaysanayaa jabhad ka dhan ah dawladdan keligeed talinaysa ee weliba ku dhisan car hadal oo ha juuqin balse ciidanka milatariga waddanka jabuuti markiiba ay gacanta ku soo dhigeen sarkaalkaa doonayay inuu samaysto jabhadda waxaa kaloo iyaduna xusud midhan in sarkaalkaa la soo qabtay xaaskiisii ay toddobaadadii ugu dambeeyey abaabul waday iyadoo weliba muuqaallo baahinaysay oo lahayd markii ay ogaan weyday in ninkeedu dhintay inuu nool yahay ka codsanaysa cumar geelle inuu ninkeedii oo keliya inuu nool yahay iyo inuu dhinto oo keliya ay u sheegto balse ay lahayd waxba ha ii soo dayne bal inuu nool yahay uu ii sheeg iyadoo weliba habeen saddexaadna mudaharaad qabaqaabinaysay ayaa warbaahintu qaadaadhigayeen laakiinse mudaharaadkaasi muu noqon mid suurtagala iyada iyo intii garab cararaysayba cirka ayaa loo calaamadiyey isku soo wada duuduub waxaan galabta la xidhiidhay inanta lagu magacaabo safiya maxamed aadan saaxiibadeed ruma oo weliba ay isku arday ahaan jireen dhanka waxbarashada oo mar ay ka wada qalin jabiyeen balse
cabsi darteed oo ay ka cabsanayso qoyskan caanka ku ah digtaateerinimada iyo keligood taliyanimada ayay waxay iga warrami kari weyday ama waraysiba igu sii kari weyday dhanka khadka taleefanka ah maadaama ay la socdaan dhaqdhaqaaqa taleefanada iyo weliba isgaarsiinta oo weliba ay dhegaystaanba isku soo wada duuduub safiye aadan maxamed saaxiibadeed waxay aada uga deerinaysaa saaxiibadeed waxaana ii sheegtay inay maalin ka hor soo wacday oo ay sheegtay inay doonayso inay uga warranto amaba ay u sheegtaba qoyska wiilku ka soo jeedo inay uur u leedahay wiilkooda balse iminka xaalkooda ku dambeeyey inay noqoto xabsi guri iyadoo lagu xidhay qol ka mid ah qolaalka ku yaalla madaxtooyada oo weliba cidna aan loo ogolaanayn taleefankiina laga qaaday gebagabadii faamligan keligood taliya ah ee reer cumar geelle ayaa waxay u muuqdaan inay marayaan talisyadii hoogay sida taliskii liibiya taliskii ciraaq iyo taliskii siyaad barreba iyo talisyo fara badan oo qaabkan u tali jiray oo cirka lagu dubtay isku soo wada duuduub waxaan isku dayi doonaa inaan la xidhiidhno faamliga ay ka soo jeeda gabadhan insha allah biidni illaahi kariim wixii warbixina ka soo kordhana waridaha TV kala soco fadlan haddii kanalkaad ku cusub tahay subscribe saar si aad muuqaalada joogtada iyo warbixinada xasaasiga aad ula socoto haddaanu nahay bahda waridaha TV habeen iyo maalin waxaan u heelanahay inaan nii soo gudbino warbixinada xasaasiga iyo weliba xogaa idinaan waxba ka ogeyn wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu